Macalaikum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan janaalkan soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal hor leh haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka walaalaha goosgooska caawa la daawan doono ee ah goosgooska labaad ee xalqada 34 haddaba asxaabta qiimaha badan ee janaalkan ku xidhan waxaan idiin sheegaynaa Melissa oo magaceeda dhabta ah uu yahay Damlaasu Ikizoglu in ay heshay taxane cusub taxanahaasina waxaa lagu magacaabaa Baba waxaana atoora ka ah Tolga Saritash jilaaga reer Turkiya caanka ah ee kasoo qayb galay taxanaha caanka ee Sos iyo taxanaha Ali Riza ama Ariza haddaba Melissa in ay atariisa tahay in kala ma sheegi karno laakiin waxaa loo badinayaa in ay atariisa noqon doonto trailerka koowaad ama teaser yar oo hordhac ah waa laga soo daayay taxanahaasi Baba waxaana soo deyn doonaa telefishinka Show TV haddaba sanadkani cusub ee 2022 ayaa la daawan doonaa taxanahaasi xalqadiisa koowaad haddaba haddii aan ka hadalno mawduuca maanta odaygii Orhana halkuu ku dambeeyay goosgooska labaad ee caawa la daawan doono maxaa lagu arki doonaa saan wada ognahay baa xalqadii u dambeysay ninka lagu magacaabo Orhan waxa uu iska fujinayay Nebhat markaas ka bacdi asagoo Nebhat iska fujinaya asaga dartiisa ay Nebhat u soo dhacday kana soo dhacday tabaqada sare ee college-ka waxaana ku soo dhacday dhankaas iyo makhaayadii uu qadir ka shaqayn jiray iyadoo xilligaasi xaflad uu ka jirtay ma laga yaabaa odayga Orhana in la geeyo xabsiga mase laga yaabaa Caakif Atakul in uu dacweeyo sida loo badinayo ay dadka falaqeeyeen musalsalka walaalaha ay sheegeenba waxaa la sheegay odayga Orhan ah in dabcan Caakif uu caga juglayn doono aana la sheegi doonin si isagana uu u qariyo arrinka Melissa Orhan lama doonayo sidaan dhibka yar taxanaha inuuga tago hadda saddexda qof ee taxanaha ugu muhiimkasan waxaa weeye Sengul Orhan iyo Caakif waa saddexda qof ee taxanaha ugu muhiimkasan waqti xaadir kala taagan yahay marka hore waxaa afreyn jiray Qadir laakiin nasiib darro Qadir waa uu tagay haddaba ma laga yaabaa Sengul iyo Orhan in ay isfuraan Sengula waxoogaa ay taxanaha ka maqnaato ama ay loo filaan noqoto oo taxanaha saasi kaga baxdo way dhici kartaa Kardashlarimna laguma kalsoonaan karo kolba sidii ay rabaan ay wax walba u dhacayaan marka odaygan Orhan lagu magacaabo iyo qoftan lagu magacaabo Sengul waa su'aal isweydiin mudan siday ku heshiin doonaan sida la sheegayo markii Orhan damcan uu Caakif Atakul u caga juglayo una ku dhaho haddii aad arrinkan sheegtid ogow adigana ku sheego xabsigeeda galisiin adigoosan Cumar waxba u sheegin odayga Orhana waa uu iska aamusi doonaa ha iska aamusa muxume Sengula halkaas ay dib isugu salaabo doonaan oo Sengula gurigeeda ayay iman doontaa haddaba gabadhii yareed ee email ahayd wax akhbaara ma laga hayaa ilaa iyo hadda goosgooska labaad ayaan ku ogaan doonaa labadooda mid ka mida wixii ku dhacay ama labadooda mid ka mida oo jiifa dhakhtarka waxaa laga yaabaa in email dhaawaceedu uu fududaa saan wada ognaaba xabadu meel waxay kaga dhacday meel iska caadi ah waa laga yaabaa in ay ka badbaado dhimashadeedana dib loo dhigo laakiin sida ay 2 bilood ka hor sheegeenba email way dhimanaysaa ayay dhaheen waan sugaynaa laakiin loo filaanku kuma jirin in hal mar email iyo Nebhat ay wada dhintaan sababtoo ah xalqadii u dambeysay 33aad waxaan aragnay Nebhat oo meel laga soo tuuray waxaaba ka daran halkaas meesha yar sida goosgooska lagu arkay haddaba tu kale ogsoono daawade Kardashlarim waa laga yaabaa waxaanoo dhan in ay riyo ka dhigaan taas maanka ka saarin saawad ognahay ba Qadir inta uusan dhiman ka hor dhoolatus ayaa nala tusay Qadir oo Caakif raadinaya Aasiya ayaa ku riyootay ugu dambeyntiina markuu arrinkii ogaaday waa ka halkaas ku dambeeyay tan ugu badan ay daawadayaasha taxanaha Kardashlarim ay isweydiinayaan ayaa waxay tahay qof kastoo Caakif arrinkiisa ogaada wada xun ayuu ku dambeyn jiray oo jilaagi dhanaa ee taxanaha hogaaminayay una sareeyay dhankaas iyo shacbiyada ee Khalid Osgur Saydoor ku sugan Qadir ahaa markii ogaaday aabiisa qofka dila waa ka dhintay odaygan Orhanahana ma laga yaabaa in la khaarijiyo taas ma sheegi karo laakiin waxaan sugnaba waan aragnaa xalqada soo socota ee 30 iyo
afraad xalqadani ayaa waxaa la daawan doonaa maalinta sabtida habeenka axadu soo galayso sabtiduna ay sii dhammaan rabto ayaa xalqadani la daawan doonaa waxaana laga daawan doonaa telefishinka ATV dhanka website-kana atv.com. haddaba ratingkaasa waad ognahay kor ayaan u kacnay 10.45 ayaan keenay total ahaan berberi iyo waxaan sugnaa Carlos Osman kaalinta uu ku jiri doono iyo in aan kor uga qaadno waxaan sugnaa waa beri Carlos Osman iyo in aan kaalinta labaad nimaano sidoo kale toddobaadka kale waxaan rajaynaynaa in dabcan kaalinta koowaad aan ku soo laabano waa laga yaabaa caawa in goos la sii deyn waaye sababo jireed awgeed si taxanaha uu u sii macaanaado xalqaduna ay u shidnaato kaalinta koobaadna aan u nimaano waxaaba fiican in gooska caawana laga daayo si aan kaalinta koobaad ugu soo laabano markii horeba annaga ayaa hogaamin jiray taxanaha Kardasharim ayaa taxanayaasha kale Turkiga ka sarreyn jiray haddana goonolda iyo taxana lagu magacaabo ayaa kaalinta koobaad laga fujin kari laayahayba kulli waan wada sugnaa haddii caawa goos uu soo baxo insha Allahu tacaala waan soo falanqayn doonaa muuqaalka xiga janaalkeena kale Khalid Drama kala soco musalsalka dhaawaca qalbiga anigoo saaxiibkeena Khalid waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.